now and press the bell icon. Never miss an update. هلا Somali TV subscribe please. السلام عليكم وإذن سلام دمانتين حالي هذا سعدي أرى ما ندعي كل العون مرضا بها نسوى عنه وحن محوها نيو جعل كيسنا مرمنا قفي هذا مر والبمحا اسكود قترت الشرب بريا تلفون أقواد لأن عادي اسكدك أنا قفت نيو مدحي قشنيو وريا هذا بقول مرسوم كودين فرا خات أقول ما نولا ذا أنا أذو أنت الهرينا دنبنا يسوى عن كيسا جعشة ووجينا يقصوا لابن دون تذي ما ندو عدي تما شاء له ما لا تبح لا إدراتسو أكون أولان لد أنا جوايا بنا صابت وقفت ويا مستمد بدن مركي الدنبا حوم لنا التلفون كأنه جرت لكن هودو يكون جرت مركز يقول تري جعلي قري جوال صوت قال أنا جن حذن وانا حنون يقدر دعيار سعدي ولا لي أيوالنا ورماني قطول عيارة ما ندعو دلا قري جوال صوت قال وريا ودخلنا نوم لسانك قفت قري كجرني وعقل كان أو بوليس يجوع markii dambe saaxiibtay waxay ugu tireen nimankii koray soo fuuleen waxa sameeyay ma aqaani oo tala keen aniga madaxii xanuunay kuwii soo dhawaadeen saaxiibtay say u caawiyaa run ahaantii dhibaato fara badan ay ku sugan tahay taleefkan hadaa damiyo aan koolkaan ka jara macnaha booliis wacana ayadan weynaya ilaa meesha waxa ka dhacay ma ogaan karay markii dambe waxaan ku fikiray hooyadeed inaa fariin qoraaleed aan u diro laakiin maamada koraysa xataa inta badan kulli ma arkaysi ilata run ahaantii aad baan uga xumaay saaxiibtii qolka loogu soo galay aniga naxdin waxaan sameeyay garan waa wallahi bilaa saaxiibtiina ma difaaci kari isla markii qoraal u qorahan ku yiri naynader qurxay sacdiyoy maxaa dhacay ku soo galeen way soo galeen macaan waligii kuma nacay intaan noolahay albaabka shanqartiisaan dareemaan ka dhex dareemo telefonkeeda waxa ogaaday marka qofteedii in loo soo galay anigoo yaaban afka isqabanayo markaas igu tir waa lay soo galay macaan adduunkan aadaan ku jeclaa kuma nici doono ninkan mindiyo wata anigan markaas naxdin waxaan sameeyay garan waa aniga qofteeda aad baan u jeclaa run ahaantii ninka markuu u soo galay shub mindidu uu sara gabadha doontu ka qalay anigan waa wacay islaamay noosha in kale qeyladeeda maqla ayadoo dhees stop iga dhaaf waxaas daradaas uma baani mindidu shub uu galay qofta sidii ku dhimatay waa nin naxariis dara midda ugu daran waxay tahay aniga ilaa maantadan waa aamini la ahay qofteeda waxa ku dhacay waxna waan ka qaban waayay isla markaa qolada booliiska waxay ku dhawaaqeen gabadhay aan saaxiibo ahayn sacdiyo inay dhimatay anigana walbahaaran ka qaada arintaas وريا ماندوع كل جرم بوليس كم حوسوا وعويد وريا اعتماد بحشله أنا مرة بنت جوداس إن تلفون كان كجر قفتي هذا وجعله مد اللبات وحكى عبسنا إنك إنه دلساسة يدين سو وعوي بوليس كوي آمنين ماشي إنه يكسرين أدبن وفرح صوته وحالي يكسر ليسك أو ضدك لقى شكيناي gabadhan waa qiyaanooley dhowr mar ay igu tiri supermarket-da aada wixii aadana ma lahan wixii dhacana booliiska ma ogaanaan sababta arintan dhan baan ka dambeeyay qofteedana aniga qaarijiyay sababta aad ii qiyaano jirta qiyaanooleyna meel xun bay ku dhimanaysaa faanteen marka aniga dilay saaxiibtay sacdiyo waa qiyaanooley saaxiibkay igu qiyaanay saaxiibkeena waa dilay asagana waa tug dhalay ninkii u diray waa la qaarijiyay asagana served. That's what she gets for cheating on me. السلام عليكم وإذن سلام دمانتين مقعيق وسعديو شاكدا محاقو دعضي أنا يقول دبر 10 سنة جرو جامعة دا أقستا ماشو والله يابك بضم محيطة هاي أنا مجعلي سوشيال ميديا أنا استمعال لكن جنوري لبديدي وحانقو عنصدا انستغرام إنا اسكريجست قرايا اسكدا داوضو ساسي تاي عبان فانيا أركي ويقو قسلسي فرينا أو قري هلو أو دري هاي soo dhaaday qofti saaxiibaan noqonay gabar aan isku daanay ahayd sida uu wada sheekeysan jirnay gabadhan ay iga qoslin jirtay ana muuqaalo ugu diri jiray qoraalo isugu qorqori jirnay aan saaxiibtay kaliya tahay igu tiray waxay soo diri jirtay xataa
sawirada familkeeda dhammaan. Qoftii saa saaxiibo u ahayn dhowr beri dhan ay maqnayd meelay ka baxday kaala sheeg. Fariina u qoray imisoo jawaabaysa aniga yab. Qoftaan maalin kadib markii soo noqoto waxay igu tiri waa fiicanahay anigana yab waxaan ku yiri qofii oo ka walwalsanaa saaxiibtay aad tahay farxiyo. Maxaa ku helaade marka wax funny ah u diro ama qosol bay ku soo jawaabaysaa gabadhu way isbedeshay sida hore ma aha. Marka wax kale u qor soo qoraysa aniga yab waxa isir qofta maxaa ka qaldan talowsan ma aan jirin. Dabeecad kale ee la soo baxday maalmaha ka mid ah waxaan ka naxay bay soo diray qofta mawaalanta maxaa waxay soo diray xarka iyo wax oo isku afduubana ay soo dirtay maalinta waxay ka dambeysay gabadha inaan ka gaabsadan go'aan ku gaaray markaas ay igu tiri intee deganta aad intee ku nooshahay anigana uma sheegin sababtoo ah waxaan ku yiri waxaan ay soo diraysid kumaana qancin qof iyo mar dambana ay soo message gareen waxbana ay soo dirin tafadaali hadaadan aqoon waa idin bariya camal waay marka gabadhi fariimaheeda zaid u bateen maalintii dambe xataa waxay igu tiri message-ka nooca keelinkee waaye aan ku soo qoray anigana isla markii blog aan saaray qofta aniga eedadaya rabay inaan soo booqdo haddana waa isbedelay waxaan go'aansaday saaxiibteydan aan blog saaray inaan soo booqdo aan iska hubiyo qoftii tahay waa ciwaanka waxay igu soo dirtay meeshii ku nooshahay meeshii aan soo aaday isla markaa dad qaraabadan u weydiiyay meesha deganaa gabadhan Renada la dhaamo taqaanin qoftan waa naqaanaa meeshaas degan tahay gurigaas muujed gurigaasna guri aad u weyn buu ahaa oo aamusan aniga yab marka ugu dambeynta guriga aaday albaabkan qaraacay waa la iga furayaa waa soo gal gabariyay habar waxaa rabaa gabadhaada inaan la kulmo Renada marka ninkaana soo baxay ninkaana waa walaalkeed maxaa rabtaa maandho cadii timaa qaxwaha leh meesha ugu daran waxay tahay guriga markaa soo galay Renada sawiradeeda dabbi ku dhignaa waa weydiiyay gabadhi gabadha dhowr iyo 10 sano ka hor dhimatay midinka dhaba oo qofka igala hadlay taleefanka iyo fariimo ay soo qoraay wuxuu ahaa dilay gabadha Renada waa hore dilay taleefankeedu isticmaalay anigana familkooda wax walba ninkaas ma nool yahay wasaqa kaas gabadheena uu baabiiyay aniga hadda su'aalahaas isu weydiinayay kadib waxaa isir qofkan oo ila soo hadlay gabadha saaxiibteena taleefankeeda qaatay oo aniga qoraalada ii soo qoray intee deganta idhaay wuxuu iga damacsanaa inuu dilo laakiin ana waxaan ku wanaagsanaa wax jawaab ma siinay meel degan oo maan sheegay maanta hadda u sheegi la guriga intuu igu imaado dubba madaxa iga qara maandho cadii timaa jaalaale oo igu siin la asxaabay muuqaalka like saara